kulan waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo Soomaalida qodobada wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah dagaal xoogan ayaa maalintii saddexaad ka socda galbeedka gobolka City kaasi oo u dhaxeeya ciidamada deegaanka Soomaalida iyo booliska iyo waliba ciidamada deegaanka Canfarta kuwaasi oo dhowrkii bari ugu dambeysayba dagaal xoogan uu ku dhaxmaraya galbeedka gobolka City ciidamadii ugu badnaa oo ka socda dowladda deegaanka Soomaalida ayaana lagu daabulayaa dhammaanba deegaanada ay haatan Canfarta ku dirirayso kuwaasi oo horay ay u qabsatay saddexdii sane ee la soo dhaafay waxaan dhinaca kale idiin soo gudbin doonaa khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo waliba sidoo kaleeto mas'uuliyiin la sheegay in ay ku dhinteen dagaalka halkaasi ka socdo dhinaca kalena waxaanu eegi doonaa sababta dowladda Ethiopia ay u soo kala dhaxgal leedahay dagaalka u dhaxeeya labada maamul ee markaasi ka socda galbeedka gobolka City kaasi oo qaaday sanado badan tan isbedelkii wadanka ka dhacay waxa uu horseeday in qoomiyadaha deriska la dowladda deegaanka Soomaalida ay bilaabaan dagaal iyo waliba abaabul xoogan oo markaasi ay ku qabsanayaan dhul Soomaaliyeed waxaan hore ogeyn dagaal xoogan oo markaasi ka dhacay deegaanada Mooyaale iyo waliba sidoo kale Guradhaamole kaasi oo u dhaxeeya qoomiyadda Oromada iyo waliba sidoo kale tan Soomaalida dhinaca kalena dowladda deegaanka Soomaalida muxuu yahay mowqifkeeda ka aadan dagaalka ka socda galbeedka gobolka City ee dowladda Ethiopia ay sida cad markaasi gabi ahaanba gacmaha uga laabatay faragelinta dagaalkaasi iyadoo ognahay in khasaaro badan iyo waliba dhibaato fara badan ay ka dhalatay dagaalka dhowrka sano ka socda galbeedka gobolka City kaasi oo kumanaan Soomaaliyeed ay ku barakaceen sidoo kale tan lagu waayay dhowr kun oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska dhinaca kalena xiisad dagaal ayaa iyaduna ka taagan xuduudda dowladda deegaanka Soomaalida iyo waliba sidoo kale tan maamulka Soomaaliland waxayna xiisadani soo bilaabatay kadib hadallo qalafsan oo markaasi maamulka Soomaaliland ay hawada u soo mariyeen dowladda deegaanka Soomaalida kuwaasi ay ku tilmaameen in ciidamada liyu booliska sida gaarka u tababaran ay qayb ka yihiin dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaanu eegi doonaa xogii ugu dambeeyay iyo waliba waxa ka jira sheegashada maamulka Soomaaliland ay mar walba ku soo celcelinayaan in ciidamada liyu booliska ay qayb ka yihiin dagaalka ka socdo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool daawadayaal qodobadaas iyo waliba kuwa kale faahfaahsan ayaad halkan ku maqli doontaan haddii ay tahay markaad kugu horeysay barnaamijkeena uu soo gaaro like saar barnaamijka oo la wadaag asxaabtaada kaleeto aynu ku bilownay dagaal xoogan ayaa maalintii saddexaad oo toosa markaasi ka socda galbeedka gobolka City kaasi oo u dhaxeeya ciidamada sida gaarka u tababaran liyu booliska iyo waliba kuwa deegaanka Canfarta oo markaasi ayagu wado weeraro aan kala joogsi lahayn oo lagu xasuuqayo shacab Soomaaliyeed oo ku dhaqan galbeedka gobolka City labadii sano ee la soo dhaafay deegaanka Canfarta waxay wadeen weeraro aan kala joogsi lahayn kuwaasi oo markaasi ay ku soo qaadayaan deegaano ay si rasmi ah u degan yihiin dad Soomaaliyeed sidoo kale tan ka tirsan dhulka dowladda deegaanka Soomaalida saddex degmo oo markaasi ku yaalo galbeedka gobolka City ayaana astaan u noqotay inay gacanta ku dhigaan ciidamada deegaanka Canfarta walow saddexdaasi degmo laba kamid ah ay haatan si toos ah gacanta ugu hayaan sidoo kale tan ay rabaan inay ku darsadaan guud ahaanba galbeedka gobolka City dhinaca kale Canfarta ayaa si cad waxay u sheegtay in gobolka City oo ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida ay dhulkeeda uu ka tirsanaan jiray sidoo kale tan Soomaalidu ay si xooga ku degtay Canfarta oo bilowday dhul balaarsi ayaa waxa ay u suurta gashay inay gabi ahaanba gacanta ku dhigaan laba degmo oo ka tirsan galbeedka gobolka City walow deegaanada haatan lagu dirirayo ay yihiin kuwa aan ka tirsanayn labadaasi degmo haddana waxaa jirto in Canfartu haatan si toos ah u sheeganayso guud ahaanba gobolka City oo leedahay gabi ahaanba gobolkaasi waxa uu hore uga tirsanaan jiray dhulka deegaanada Canfarta si kastaba xaaladda ayaad moodaa inay sii cakarmayso in ka badan 10,000 oo ka tirsan ciidamada liyu booliska ayaana la geeyay xuduudaha iyo waliba deegaanada haatan dirirtu sida tooska uga socoto waxaana la soo tabinayaa in saraakiil fara badan oo ka tirsan ciidamada liyu booliska halkaasi lagu waayay iyadoo gabi ahaanba dagaalku uu halkaasi ka sii fidayo waxaana deegaanada haatan dagaalka sida tooska uga socdo lagu sheegay in ay aad ugu dhow yihiin degmada Candhuufta iyo waliba Catayto oo horay ay gacanta ugu dhigeen ciidamada maamulka deegaanka Canfarta waxa dhinaca kale iyadana dagaal xoogan ay ka socdaan dhanka deegaanada Garbaciise waxaana sidoo kale dagaalo iyagana kale ay ka socdaan deegaanada markaasi ka tirsan guud ahaanba galbeedka gobolka City labadii sano ee la soo dhaafay waxaa la waayay dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqnaa galbeedka gobolka City kuwaasi oo ay afduubteen qoomiyadda Canfarta kuwaasi oo ilaa iyo xilligan jaaniyo cirib meel ay dhigeen aan la haynin waxaana laga yaaban yahay sababta markaasi kalifaysa in deegaanka Canfarta oo ognahay tabar iyo taag ahaan iyo waliba population inta uu ka joogo marka loo eego dowladda deegaanka Soomaalida
awoodda intaa leeg ee markaasi ay ku furanayaan ama ay ku afduubanayaan dad Soomaaliyeed oo markaasi aan waxba galabsan. dhinaca kaleeto meeday awooddii ciidamada liyu booliska ee markaasi lagu ababiyey in ay cadowga noocan oo kaleeta ay cagta mariyaan. tan iyo isbedelkii dalka ka dhacay 2018 waxa uu horseeday in la qabjabiyo ciidamada liyu booliska oo looga bartay howlaha noocan oo kaleeta inay soo afjaraan. tan iyo isbedelkii uu ku guuleystay ama markaasi xilka loogu magacaabay ee Mustafa Cagjar oo haatan ka madaxweyne dowladda deegaanka Soomaalida wuxuu gabi ahaanba hoos u dhigay qabkii ciidamada sida gaarka u tababaran ee liyu booliska iyo waliba sidoo kale awooddii ay lahayd dowladda deegaanka Soomaalida. waxaana ilaa iyo xilligan markaasi ay shacabka Soomaaliyeed wax iska weydiinayaan waxa sidaasi u galay ciidamadii qaranka ee markaasi difaaci jiray dhammaanba dhulka dowladda deegaanka Soomaalida ay xuduudaha kala wadaagto maamulada kale ee dalka. tan iyo isbedelkaasi waxa uu sidoo kale horseeday in maamulada dariska ay gabi ahaanba bilaabaan daandaansi xoogan iyo waliba in dhul Soomaaliyeed ay ku soo duulaan maalin cad. maalin dhow ayay ahayd markii qowmiyadda Oromada ay weerar ku soo qaaday 3 degmo oo ka kala tirsan gobolka Daawo, Afdheer iyo waliba sidoo kale Liibaan. waxaana deegaanada ay sida tooska Oromadu u soo weerartay waxaa ka mid ahaa degmada Ceelkarri iyo waliba sidoo kale 2 deegaan oo markaasi ka kala tirsan gobolka Daawo iyo waliba sidoo kale gobolka Liibaan. waxayna arrintan daliil cad u tahay in qowmiyadaha dariska ay haatan si toos u rabaan inay u qabsadaan dhul Soomaaliyeed. horey waxaanu ogeyn xilligii Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha ka ahaa dowladda deegaanka Soomaalida in dhowr mar Oromadu ay weerar ku soo qaaday dhul Soomaaliyeed kadibna dhibaato xoogan halkaasi lagu gaarsiiyay qowmiyadda Oromada. dhinaca kaleeto waxay iyadana dareer iyo waliba dandaansi xoogan Oromadu ka wada deegaano markaasi hoos yimaada gobolka Faafan. waxaana in ka yar 30 kilomitir meel u jirta magaalada Jigjiga haatan laga qodayaa dhaambiyoodyo markaasi ay leeyihiin qowmiyadda Oromada, taasi oo la rabo in la keeno qoysas ka tirsan qowmiyadda Oromada kuwaasi oo beeran doono deegaanka hodanka ee markaasi ku yaalo duleedka Tuulo Guleed. waxaana arrintaasi daliil cad u tahay in gabi ahaanba qowmiyadaha dariska ay haatan si toos u rabaan inay dhul ballaarsi iyo waliba dhul boob ka sameeyaan gudaha dowladda deegaanka Soomaalida. haddaba away madaxdii iyo waliba sidoo kale maamulkii dowladda deegaanka Soomaalida ee ayagu u dhaartay inay gabi ahaanba difaacaan xuduudaha iyo waliba deegaanada uu leeyahay dhulka dowladda deegaanka Soomaalida. tan iyo isbedelkii dalka ka dhacay waxa uu horseeday inay imaadaan madax markaasi kabaqaad u noqonaya madaxda ugu sareysa dowladda Ethiopia oo ayagu arrimaha noocan oo kaleeta inta badan la safta maamulada kale ee dariska la dowladda deegaanka Soomaalida. horey waxaanu ogeyn dhexdhexaadin la rabay in lagu sameeyo qowmiyadda deegaanka Soomaalida iyo waliba sidoo kale Canfarta. waxaa loo soo diray saraakiil markaasi u badan Oromo iyo waliba sidoo kale Axmaar. waxayna si toos ah ula stafteen qowmiyadda Canfarta kuwaasi oo markaasi ka codsaday Mustafa Cagjar inuu gabi ahaanba 3 degmo ee sida tooska dagaalku uga socdo loo gooyo qowmiyadda Canfarta. sidoo kale tan deegaanka Soomaalida lagu daro 2 degmo oo markaasi loo magacaabayo ama lagu kordhinayo deegaanka galbeedka gobolka City. arrintaasi way u cuntami weyday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda deegaanka Soomaalida. walow qaar ka mid ah madaxda ugu sareysa dowladda deegaanka Soomaalida haddii ay noqoto kuwa federaal ku matala iyo haddii ay noqoto kuwa ka tirsan xukuumadda Mustafa Cagjar ee ayagu yeeleen ayagoo arrintaasi u cuskaday in markaasi isdhaxgal bulsho laga sameeyo xuduudaha deegaanada aanu la wadaagno sida Oromada, Axmaarada iyo waliba iyo sidoo kale Canfarta. dagaalada dhammaanba xuduudaha dowladda deegaanka Soomaalida ka socdo waxaa si toos ah haatan ugu soo biiray maamulka Somaliland oo ayagu markaasi u taag la'aa dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. maamulka Somaliland oo dandaansi xoogan ku haya dhowrkii sano ee la soo dhaafayba dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan tan iyo intii dagaalka uu ka qarxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. maamulka Somaliland ayaa kordhiyay dhammaanba hadallada qalafsan iyo waliba sidoo kale hadallada nacaybka abuuraya ee markaasi warbaahinta ay la soo fadhiisanayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareyso maamulka Somaliland. waxayna arrintan daliil cad u tahay in Somaliland ay si toos ugu soo biirtay dhammaanba dagaalada ka socda xuduudaha dowladda deegaanka Soomaalida oo la wadaago maamulada kale ee dalalka Ethiopia iyo waliba sidoo kale Soomaaliya. waxaana haatan u muuqataa in Somaliland ay isku diyaarinayso dagaal ay la gasho dowladda deegaanka Soomaalida. dhowr mar hore xukuumadda Mustafa Cagjar waxay si toos ah iskaga difaacday eedeymo meelwaa oo markaasi maamulka Somaliland ay u jeediyeen dowladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo ku aadan ciidamada liyu booliska inay ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
dagaalka 26 bishii February ka bilowday magaalada Laascaanood ayaa Somaliland waxay gebi ahaanba ku eedeynaysaa inay qayb ka yihiin ciidamada liyu booliska kuwa Puntland iyo waliba ururka argagixisada Al-Shabaab arintaasi oo ummadda caalamka ku nool gebi ahaanba la noqotay fajac iyo amakaag sababta markaasi kalifi karta in ciidamada liyu booliska iyo shabaab ay isku meel ka dagaalamaan warqado kala duwan oo bayaanaha markaasi ay soo saareen maamulka Somaliland ayayna ku sheegeen in ciidamada liyu booliska iyo maamulka dowladda deegaanka Soomaalida ay qayb ka yihiin dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasi oo ugu dambeyn sababtay in dowladda deegaanka Soomaalida gebi ahaanba ay xidho xuduud ay la wadaagto maamulka Somaliland taasi oo nolol ahaan iyo waliba dhaqaale ahaanba ku adkaysay maamulka Somaliland jiritaankooda waxayna haatan u muuqataa cunaqabataynta cusub ee dowladda deegaanka Soomaalida ku soo rogtay maamulka Somaliland inay sababi doonto in maamulka gebi ahaanba dadka ku nool ay iskaga qaxaan in ka badan 200 oo ganacsato dowladda deegaanka Soomaalida u dhalatay ayaa gebi ahaanba ka wareegtay dekedda magaalada Berbera waxayna haatan si toos ah ugu xidhmeen maamulka Puntland taasi oo sababtay in dowladda deegaanka gebi ahaanba ay xiriirka u jartay maamulka Somaliland waxaana dhanka kale gebi ahaanba istaagay isku socodkii dadka shacabka ee u kala dukaamaysan jiray magaalooyinka Wajaale iyo waliba sidoo kale magaalada Jigjiga si kastaba daawadayaal xaaladda ayaad moodaa in ay ku sii adkaanayso maamulka Somaliland walina dagaalo xoogan ayaa waxay ka socdaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool war qoraal ah oo dhawaan ka soo baxay maamulka Somaliland waxay beesha caalamka u direen warqad markaasi ku qornayd in ay argagixiso kula dagaalamayaan magaalada Laascaanood taasi oo ka difaacayaan wadanka Ethiopia iyo waliba sidoo kale Djibouti waxayna sidoo kale taageero weydiisteen beesha caalamka oo ayagu dhawaan markaasi booqasho ku tagay magaalada Laascaanood sifa ay u kurgalaan xaaladda markaasi nololeed ee ka jirta magaalada Laascaanood kadib madaxfiicii faraha badnayd ee ciidamada maamulka Somaliland ay ku barakiciyeen 100,000 oo Soomaaliyeed oo markaasi ku dhaqnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si kastaba qaramada midoobay ayaa ka dheeragsan warbixinada iyo waliba waxa ka jira xaqiiqada magaalada Laascaanood waxaana moodaa in Somaliland ay la hadlayaan caalam aan ahayn midka haatan jiro horey waxa Somaliland ay u sheegeen inay soo afjarayaan oo awood ay haatan u adeegsan doonaan shacabka iyo waliba sidoo kale dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayagoo sheegay inaysan awood uga hadhi doonin dadka argagixisada ama ciidamada argagixisada ku sugan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayadoo ognahay Somaliland inaysan jirin wax ay ola hadhay magaalada Laascaanood ee dagaalka ka socdo haddana waxay Somaliland sheegtay inay soo afjari doonto argagixisada iyo waliba ururada markaasi nabadiidka ee ka dagaalamayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadka deegaanka iyo waliba isimada dhaqanka iyo waliba sidoo kale dhamaanba ciidamada hiil walaal ee markaasi ku sugan magaalada Laascaanood waxay dhankooda sheegeen inay u diyaarsan yihiin khatar walba iyo waliba sidoo kale shirqool walba oo markaasi uu abaabulayo Muuse Biixi Nuux Taani oo kuwaasi oo dhawaan markaasi loo gudbiyay maxkamadda Hague sidii loo maxkamadayn lahaa ama dambiye loogu soo oogi lahaa dhibaatadii xooganeyd ay ka geysteen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool daawadayaal waxyaabaha ka soo kordhana qaybaha dambe ee wararkeena ayaad ku maqli doontaan tan iyo intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo amaane Allah